waxaan halkan soo taagay inaan idin sheego inuu dalka ka ambabaxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wafdigaas wuxuu baxayaa dalka Djibouti madaxweynahana waxa ku weheliya gudoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaanka guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan Ismaaciil oo ah la taliye xagga aqoonsaraadka jamhuuriyadda Soomaaliland waftigaas wuxuu baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casumay oo ay soo qaban qaabiyeen dawladda Djibouti iyo dawladda Mareykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb galayaan madax kale oo badan oo ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dawladda ama dalka Itoobiya waftigaas waxa la isugu keenayaa Somaliland iyo Soomaaliya ujeedada shirku waa intaas ajandihiisa iyo waxa laga wada hadli doono iyo arrimahaasu de marka la isu tago baa laga wada hadli doonaa waxaan halka kan hadda ka sheegno oo aanu ma jiro insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu afkarad iyo guul